bixin gaar aan idinka diyaariyey City Golden Hotel oo kamid ah hoteelada waaweyn ee ku yaala caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Hoteelku waxa uu ka warbixiyey habka ula dhaqmaan isla mar ahaantaasina ay ula macaamilaan macaamiisha soo booqanaya kadib digreeta amar ah oo ku saabsaneyd amniga dalka. Geesta kalena hoteelku waxa uu faahfaahin dheeraad ka bixiyey adeegyada uu bixiyo iyo weliba serviska kala duwan ee ugu talagalay macaamiishiisa. Waa kuwa iyagoo ka hadlaya amurahaas iyo qaar kale oo kala duwan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. aad baan idin soo dhaweynayaa qoladiina ka socota TV-ga qaranka Soomaaliland. waa noo farxad inaad soo booqataan. magacaygu waa Cabdisamed Cali Caarshe kamida ama ah managerka hoteelka City Golden Hotel. mar labaad mar saddexaad baan idin soo dhaweynaynaa. kolley waa fariinta waa la soconaa. waxaan filayaa inaad noo soo booqateen arrimaha amniga inaad naga wareysataan. arrinta amniga haddaan idinka warramo, amnigu waxa weeyaan laamaha amaankana waan wada shaqeynaa, aad baan wada shaqeynaa. qolada immigrationka aad baan wada shaqeynaa. sidoo kalena sidii fariintii social media ba laga arkayay ee madaxda qaranku ay faafisay, waxay ahayd in dadka imanaya ID-ga iyo wax aqoonsiga laga reebo si hadhow hadii problem yimaado loo aqoonsan karo qofkaas iyo meesha wadanka ka soo galay iyo waxaan ku raadin raac fiican looga helo. anagu awalba ka hotel ahaan bahdeeda City Golden aad baanu amniga u ilaalin jirnay. qof la garanayo oo ama mas'uul dawladeed ama de ganacsade weyn oo wadanka maal gashaday oo la garanayo mooyaane dadka shacabka ah caadiga ah noo imanaya mar walba waxaan weydiin jirnay wax aqoonsiya. hadii aqoonsi laga waayay dadkeena wad iska taqaanayo de way ka iman karaan oo waxay ka oran karaan ama ma qaadan ama markaasna aqalkaaga garaac baan ku oran jirnay oo aqalkaas marka ID-giisa noo soo diri jiray. saasaanu awalba xaaladeedu caynkaas ahayd. tan kale ee soo korodhay ee xaq xukuumadda ka soo korodhayna waxay noqonaysaa baraarujin iyo inaan dadaalka yagiisii laba laabno. markaas fariintaasina wuu soo gaadhay. hadeerna dadka ID-yada sidaan uga ururin jirnay baan uga ururinaa. qof hudheelka hurdaa ma jiro ilaa iyo waa la hayaa xogtiisii oo dhameystiran. waanan u gudbinaa qolada immigrationka oo way noo yimaadaan si daily bay noogu yimaadaan habeen walba iyo maalin walba way nala joogaan. wixii soo kordha ee shakiya aanu anaguna aragno si degdeg ah baan ula wadaagnaa, iyaguna markaas shaqadooda ka qabsadaan. marka aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa. fariintaas wayna soo gaadhay waana waxaan aad ugu maqsuudnay. intaa ka bacdi waxaan ku dari lahaa hoteelka iyo hoteelka wuxuu furan yahay muddo ilaa 2 sano 3 sano oo dhow furan yahay. 2 sano iyo sayd ayuu hoteelka hadda furan yahay. waa hotel cusub, waa hotel aan macaamiisha aad ugu soo dhaweynayno. waa adeegyada aanu bixino waxa kamid ah qofkii inaan hotel sariir VIP iyo qalabkiisu u dhameystiran yahay inaanu siino. qol aan waxba ka maqnayn oo hadduu family yahay oo xaaskiisii la imanayo iyo family-giisii, hadduu kaligi yahay oo uu qol single doonayo qol VIP ayaan labada goorba siinaa. haddii sidoo kale waxa jira sariiro iyaguna double beds oo dadka saaxiibada ah ama laba wiil oo saaxiiba ama laba dumar oo saaxiiba tusaale noo yimaada kuwaas qudhooda waanu adeegnaayo qolal loogu talagalay baa jira. surface-ka hotelku waa surface aad u dhameystiran, wax walba leh. qaybtii aad cuntada ka dalbanaysay, wiishkii loogu talagalay dadka aan jarjarada mari karayn ama mari karaya ama iska daayay wiish buu leeyahay hotelku aan qofku lugaynayn jarjaradii iyo wixii aan jirin. qofka culus maxaan ku raahday de waa u chance oo waxay noqonaysaa inuu maxaan ku raahday si fudud qolkiisa ku tago qol si fiican u qalabaysan wax walba u dhameystiran yihiin. ما شاء الله qaybtii cuntada waan leenahay xaq hoose qaybtii cuntada inooga furan tahay. qofkii isagoo qolkiisa jooga ayaa loo adeegaya si dhameystiran loogu adeegaya. telefoon baa u dhexyaala, telefoonkaas wax walba ka dalbanaya si dhameystiran baa loogu adeegaya qofka. marka waan soo dhaweynaynaa macaamiisha aad baan soo dhaweynaynaa ma sha Allah. dadkaas walaal waxay raacaan wiish hudheelku wiish buu leeyahay. halkiisa qofkiisa xafiiska reception-ka markuu soo maro la hubiyo qofkaas inuu yahay qofkii saxda ahaa ee hoteelka deganaa. toos wiishku wuxuu ku hor yaalaa reception-ku buu xafiiska reception-ka wiishku isku qabsan yihiin. halkaas uu qof soo maray, halkaas wiishkiisa ka soo raacaya, qolkiisa hortiisa wiishka kaga degaya, floorku yahay uu taabanaya, floorkiisa kaga hor degaya, saas uu qolkiisa ku tagaya isagoo wax dhib arag. waanu kala kantaroolaayo qofku markuu noo yimaado waanu weydiinaa aqoonsigiisa. marka qofkaasi hadii uu kaar Soomaaliland sito ID national ID Soomaaliland uu sito national ID-gaas hadda naga filan wax walba. laakiin haddaan de national ID-gi sidan kaarkii Soomaaliland haddaan sidan waxay noqonaysaa markaa in del si dhameystiran loo baadho xogtiisa oo la yiraahdo maxaad seetaa documentigaaga tus. dabadeedna uu sidaa hadii uu
ama wadamada galbeedka ka yimi ama meel kaleba ka yimi ama Soomaaliya ama meesha doonaa ka yimaado baasaboorkiisa baanu ka qaadnaa oo aanu u gudbinaa waaxda socdaalka oo la wadaagnaa waaxda socdaalka sidaas markaa lagaga warhayaa qofkaasi haddii uu qof wax wadana immigration kaga warhayaan haddii uu kale noo warkiisu saxan yahayna immigration saas bay kaga warhayaan mar walba way noo yimaadaan walaalo qolo saraakiil iyo maxaan ku dhahayaa noo yimaada na kormeera na wareysta xaaladda guud amniga hotelka naga wareysta marka mar walba waan uga warbixinaa sida ugu habboon iyo sida waxay yihiin si buuxda bay ula socdaan qolada laanta socdaalku العلس ahaan adigu halkii yoom wax laga yaabaa marka العلس la yiraahdo ilaa 5 qof meelahaas noo yimaada halka laga yaabo in ilaa inta in leegna ay baxdo inta 5taasna oo soo gasho 5 waa baxda waa العلس ahaan maalin ka badan karnaana waa jirtaa maalin ay ka yaraan kartaana waa jirtaa marka sida weey walaal halka tan faahfaahin kaas iyo walaal qofku markuu hotelkii yimaado adeegan in qofka qolkiisa loogu adeego wuxuu ka mid yahay service-ka hotelku bixiyo qofku qolkiisa ayuu imanaya dabadeedna markuu yimaado telefoon baa u dhex yaala telefoon line baa u dhex yaala telefoonkaas uu garaacaya wuxuu la hadlayaa qaybtii cuntada ee cafeteria-du la hadlayaa waxaasan walaal u baahanahay sida ugu dhaqsiya badan laba macmiilka loogu adeegaya dabadeedna qolkiisa isagoo fadhiya ayaa wax walba loo dhameystiraya wixii uu dalbaday loo keenaya service kasta oo uu u baahan yahay halkiisa loogu adeegaya macmiilka walaal waa sax kala qolaalku way kala duwan yihiin way kala qiimo jaban yihiin qolaal VIP iyo maxaan ku dhahay qolaal loogu talagalay dadka iska standard noloshoodu iska maxaan ku dhahay aan income fiican soo gelin qolaalkaas iyagana waan leenahay marka qofku marka uu yimaado xog dhameystiran oo ayaa loo sheegaya qolku u baahan yahay hotelka loo sheegaya marka loo yimaado xogta dhameystiran loo sheego qiimaha qofkaasi uu ku qanco ayuun buu ku galaa marka caynka weey walaaltaasina qiimo macquulana inta badan qiimo macquula oo hoteladan maxaan ku dhahday marka loo eego hotelada caasimada marka loo eego aad u macquulaho jaban oo dadka ay kala dareenahay ayaan inta badan qolaalkaygu ay yihiin hoolasha lagu qabtaa walaal leenahay way jiraan marka way jiraan oo hoolal si fiican u qalbaysan baa jira maxaan ku dhahday oo hotelka kamida marka waa ku soo dhaweynaa cidii u baahan iyo cidii ku shiraysa aad baan u soo dhaweynaa macaamiishayada waxaan ku dhahday u gudbinayaa kulli macaamiil hore noogu xidhnayd way jirtaa macaamiisha cusub aan warkaygu gaadhin waxaan halkan uga gudbinayaa inaan nahay hotel VIP oo fiican oo nadaafadiisu heer sare tahay nadaafad mar walba qofka laga warhaynayo wax kasta oo nadaafadiisa quseeyo qofka laga warhaynayo teamka nadaafadu qolka hor taagan yahay wixii ku soo kordhabo maxaan ku dhahay sida ugu shaqeynayo service-ka kale hotelka haday service cunno tahay iyo haday maxaan ku dhahday service kale tahay oo maxaan ku dhahday dheeriyo qofku baahdo intaba halkiisa loogu adeegaya macaamiisheeda hore noola joogtay way naga aragtay waana inagu amaanaan macaamiisheeda cusubna waxaan leenahay ku soo dhawaada aad baan idin soo dhaweynaynaa hotelkiina ku soo dhawaada qiimo macquula haddaan loo timaadan kulli idinku baa indhihiina idin macalin doona indhihiina idin macalina marka aad bay u istiraxi doontaan haddaan loo timaadaan waan idin soo dhaweynaynaa qolaalka walaal waxa ugu diyaarsan sararsi VIP loo goglay oo maasha Allah ayaa u diyaarsan waxa u diyaarsan telefonkii oo cunada ka dalbanayay oo dhex yaala waxa u diyaarsan kabadhkiisi iyo maxaan ku dhahday qolku si fiican buu qalbaysan yahay kabadhkiisi koomadiinkiisi wixii oo dhan u dhameystiran yihiin sidoo kale qolaalka VIP da oo kale waxa jira view qofku uu balkoon buu leeyahay qolku balkoon buu leeyahay balkoonigiisa yar buu qofku kursiga iska dhiganaya halkaas magaalada kala soconaya taasina waxa weeyaan service dheeraada wax kasta oo qofku u baahdo oo maxaan ku dhahday sida caadiga maxaan ku dhahay hoteelada fiican wadankeena ku yaala wax kasta oo qofku u baahdo waa diyaar weeyaan aad baan la diyaarnaa fariintan halka gudbinaya shacabka waxa weeyaan farxadda iyo reereynta iyo soo dhaweynta ixtiraafku yaanay inaan ildoofin amnigeenu inuu faraha ka baxo waa inaynu amniga gacanta midig ku qabsanaa farxadeena iyo reereynteena iyo wanaageena muujinaa madaxweynahana aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro aad baan ugu mahad celinayaa shaqo adag buu qabtay waa madaxweyne ku suntan ictiraafka Soomaaliland taariikhda xusi doonta aad baan ugu mahad celinayaa walaal waa su'aal fiican niyow horta waaniga hore kuugu sheego macaamiishayadu mar hore waanu u sheegnay inaan waxaan ID wadan ama aqoonsi wadan inaanay hore waanu digtoonay inaanay soo gali karin hotelka
mar walba loo baahan yahay aqoonsi hase ahaatee macaamiisha cusub ee kusoo biirta way jirtaa caqabadaasi way naga hor timaadaa dadkeenuna hadda runbay baraarugeen markii la yidhi waxa loo baahan yahay ID card inbay baraarugeen marka macaamiisha cusub aan ID card sidan wuxuu banaanaa caaqilkaagi noo garaac caaqilka ID-giisa soo dira marka saasaanu qofkaas caaqilkaasi uu mas'uul kaga noqdaa maadaama aanu caaqilka ID-giisa hayn